wadahadaladii u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa ay ku dhamaatay natiijo la'aan laakiin arrimaha muhiimka ah oo in la isweydiiyo mudan ayaa ah sababta keentay in wadahadaladaasi ay fashilmaan ama ay burburaan wafudi ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya waxay la tageen shirkaasi laba mowqif oo adag mudan sidoo kale in aanu ku taageerno haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed wariyuhu marka kaliya oo ay waajib ku tahay in uu meherada saxaafadda intuu meel dhigo dalkiisa difaaco waa marka cadowgu uu soo hujuumo dhulka iyo badda Soomaaliya sida darteed waxaan si buuxda u taageersanahay mowqifyadii ay wafuudda dowladda Soomaaliya ay la tageen magaalada Ankara ee dalka Turkiga adiguna haddii aad Soomaali dhaba tahay waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad ii sheer garayso fiidiyowgana aad like saarto hadduu alla idmo wafuudda dowladda Soomaaliya matalayay waxa ay la tageen shirkii Ankara laba mowqif mowqifka koowaad Itoobiya inay ka noqoto xadgudubkii madax bannaanida Soomaaliya ay la bareertay January 2 2024 kadib markii magaalada Addis Ababa heshiis is-afgarad ah uu ku dhex maray Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ilaa ay dowladdu Itoobiya aynan arrintaasi ka laaban waxay sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya wafuudii ka socotay in aysan la fariisan doonin iska daa inay wada hadal la galaan waa hadal qiimo badan waa go'aan geesinimo leh waana mid mudan in aynu ku taageerno wafuudii uu hogaaminayay Axmed Macalin Fiqi intaa kaliya kuma aysan ekaan labo waxay qaateen go'aan kale oo geesinimo mudan in lagu taageero waxay yidhaahdeen marnaba annagu gorgortan kama gelayno baddeena hadalka si fiican u dhegeyso marnaba annagu gorgortan kama gelayno baddeena sidaa darteed badda annaga iskale Itoobiya horta taabarka koowaad waa inay ogolaataa baddaan annaga iskale mar alla iyo markay Itoobiya ogolaato ayaanu la fariisan karnaa kadibna wada hadal la geli karnaa waa laba go'aanoo aad u muhiima dowladda Turkiga oo dhexdhexaadinaysay waxay ku qasbanaatay in laba meelood la kala fariisiyo wafuudii Itoobiya iyo wafuudii ka socotay dowladda Soomaaliya kadibna loo kala dab qaado wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa marba qayb u tagay Itoobiya waxaa loo gudbiyey go'aanada wafuudda Soomaaliya ay wataan kow inay ka noqdaan is-afgaradkii Addis Ababa ay ku saxiixdeen Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi labo badda Soomaaliya in aan gorgortan laga gelin wax gorgortan ah inaysan badda Soomaaliya ka gelin labadaas mowqif loo gudbiyey wafuudda Itoobiya ka socota waxay sheegeen inaysan hadda wax go'aan gaari karin go'aankana ay ku khasban yihiin inay kula noqdaan dowladooda kadibna la siiyo muddo adiga bil ilaa Agosto ilaa iyo September shirkana uu September kadib la isugu soo noqdo kadibna ay labadaas mowqif iyagoo go'aan ka gaaray ay imaan doonaan laakiin ay codsanayaan in si kale ay u wada hadlaan oo labadaas mowqifna go'aankooda September laga dhigo ama bisha 9aad laga dhigo waa labada mowqif oo ay dowladdu wadato laakiin caadi looga wada hadlo arrimaha taagan iyo sida labada dowladood la isugu soo dhaweyn lahaa waa codsi kale oo Itoobiya ka yimid waxaa loo gudbiyey wafuudii dowladda Soomaaliya ka socotay laakiin gaashaankay u daruureen waxayna istaageen wafuudii Soomaaliya matalaysay xitaa inaysan kursida fariisanayn ilaa labadaas mowqif Itoobiya ay qalinka ku duubto oo ay ogolaato madax bannaanida Soomaaliya ka noqoshada is-afgaradkii Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Addis Ababa ku dhex maray iyo weliba in badda Soomaaliya aan gorgortan laga gelin halka markay arrin marayso shacabka Soomaaliyeed waxay aad ugu riyaaqeen go'aanka ay dowladdu ka istaagtay shirkii Ankara ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxeen labada mowqif ay dowladda Soomaaliya gaartay waana labada mowqif ee aan anagu ka sugaynay wariyuhu marka kaliya ay waajib ku tahay in uu intuu saxaafadda meel iska dhigo dalkiisa ka difaaco cadowga Itoobiya waa markay timaado in cadowga uu hujuumo badda iyo weliba barrinka Soomaaliya sidaa darteed
anigu waxaan si buuxda u garab taaganahay mowqifka wadaniyadeed mid ka darjacayl ee maanta ka muuqda wufuuddii ka socotay soomaaliya oo magaalada ankara tegay waxaana leeyahay waad mahadsan tihiin soomaaliya waxay sugaysay waa natiijadan waxaana idinka rajaynaya in natiijadan aad ku sii adkaysataan marnaba etoobiya wadahadal iska daaya in lala fariisto ma qabo ilaa ay labadaasi go-aan ka noqdaan kadib intaas markuu shirkii sidaa ku burburay oo ay etoobiya laga diiday go-aanadii ay wadteen oo dhan ayaa warburtiyeedkii la gaaray halka mar oo ay wufuuddu isku yimideen gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya waxay ahayd warburtiyeedka keliya markii la akrinayay sida ka muuqata sawirka aad wada aragteen warburtiyeedkii baa la akhriyay shirkaasna saasuu ku soo dhamaaday dowladda soomaaliya laba mowqif bay ka taagan tahay soomaaliyay indhaha kala fura wax badan baa qarsoon cadowga etoobiyana waddada keliyoo la isaga qaban kara waxay tahay midnimo haddaad mucaarad ku tahay siyaasadda xasan sheekh maxamuud iyo haddaad muxaafad u tahay siyaasadda xasan laba gool ahaanba jiritaanka dalka waa mid annagoo dhan noo wada dhexeeya waana ku taageersannahay labadaasi mowqif oo ay dowladda soomaaliya gaartay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono daawadayaal waa cabdullaahi barwaan oo idinle meel kasta waa joogtaan nabadgelyo